waa galabnimo khamiis ah bisha May ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caasho Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhiga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno doorka odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo marxaladihii ay soo mareen. nimankaana la yidhaahdo madax dhaqameedku dhowr heer ayay soo mareen mar waxay ahayd markii miyiga la joogay Soomaalidu ay miyi u badnayd madax dhaqameedka Soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin la soo gudboonaada xallintooda. waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan falcelinta Puntland ee shirka wadatashiga qaran ee ay ka maqan tahay ee maalintii saddexaad ka socda magaalada Muqdisho. aragti siyaasadeed madaxda way isugu keeni kartaa laakiin maartay aragtidaasi haddaanay ahayn mid loo midaysan yahay oo dadka dhan ka dhaxaysa waa odayaal sheekaystay uma la mid tahay oo odayaasha iska sheekaysteen. dowladda Puntland iyo madaxweynuhu waxay soo jeediyeen gobol qaran bay dhigeen dadka Soomaalida inay ku wada hadlaan bal wixii lagu kala duwan yahay hal la keeno hal laga wada hadlo. qodobada kale aan idinku hayn idaacaddana waxaa ka mid ah Maraykanka oo cunaqabatayn saaray laba ka mid ah saraakiisha ciidamada RSF ee dalka Suudaan, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhagaysan doontaan inta idaacadda ay socoto. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo anigoo ah Caasho Ibraahim Aadan. hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa arbacadii waxa ay ka digtay in khatarta macluusha ay sii kordhayso oo ay gaarayso 5 milyan oo reer Suudaan ah oo ku nool qaybo ka mid ah dalkaas ay saameeyeen dagaalada. ballanqaadyada ay sameeyeen dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo gargaarka bani'aadminimo ee degdega ah ayaa waxaa loo baahan yahay in loo turjumo xaqiiqooyinka ka jira gudaha. Carol Scu oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee WFP ayaa bayaan uu soo saaray sidaasi ku sheegay. Scu waxa uu ka soo noqday howlgal uu ku tegay dalka Suudaan toddobaadkan waxaana uu sheegay in xaaladda ay tahay mid quusa oo si degdega uga sii daraysa. kaliya dhowr toddobaad ayaa waxaa ka harsan in sahayda cunnada lagu kaydiyo qaybo ka mid ah Darfur iyo Kordofaan ka hor inta aanu xilli roobaadka bilaabmin, xilligaas oo wadooyin badan ay noqdaan kuwo aan la mari karin, ayuu yidhi. xilliga roobka ee dalka Suudaan waa bilaha Juun ilaa iyo Juulaay, inkastoo ay jiraan dagaallo iyo sidoo kale xirnaanshiyo gudaha ah. isbaarooyinka iyo caqabadaha kale ayaa WFP waxay sheegtay inay hadda gargaar gaarsiinayso ilaa iyo 2 milyan iyo bar oo reer Suudaana. Israel ayaa khamiistan maanta ah sheegtay in 5 ka mid ah askarteeda ay ku dhinteen rasaas ay fureen taangiyada ciidanka ka dagaalamaya gudaha Gaza. militariga Israel waxay sheegeen in 5 askari ay dhinteen arbacadii kadib markii 2 taangi ay si khalada u duqeeyeen dhisme ay askartaasi ku sugnaayeen intii lagu guda jiray isku dhac ka socday xerada qaxootiga Jabaaliya ee ku taalla waqooyiga. dagaal culus ayaa mar kale dib uga qarxay waqooyiga, kaas oo kadib digniino ciidan oo ku saabsan sida hadalka loo dhigay isku day ay Xamaas ku doonayso in ay dib ugu dhisto awoodeeda ciidan bilo kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday in ay burburisay ama ay burburiyeen dhismooyinkii talisyada kooxda. wariyaasha wakaaladda wararka ee AFP, goobjoogayaal iyo dhakhaatiir caafimaad ayaa khamiistan waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay mar kale beegsadeen goobo ku yaala Gaza xalay oo ay ku jiraan magaalada Gaza iyo aagga koonfureed ee Zaytuun, Jabaaliya iyo xerada qaxootiga ee Nusayraad. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu sheegay in uu khamiistan u safray waqooyiga bari ee magaalada Kharkiv si uu ula kulmo saraakiisha ciidamada xilli uu Ruushka duulaan ku yahay gobolka. Zelensky ayaa waxa uu sheegay barta Telegramka in xaaladda Kharkiv ay tahay mid aad u adag laakiin guud ahaan la xakameynayo. Ruushka ayaa sheegtay dhowr tuulo oo ka tirsan Kharkiv maalmihii la soo dhaafay. horumarka Ruushka ayaa waxa uu keenay in Zelensky
uu baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo hore loo sii qorsheeyey. militariga Ukraine waxay khamiistan sheegeen in iyada oo xaaladda Kharkiv ay weli tahay mid cakiran, haddana ciidamada Ukraine ay xaaladda dejiyeen oo ay hakiyeen horusocodka Ruushka ee meelaha qaarkood. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay waxaa maalintii saddexaad galay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho, kaasoo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirka ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda, amniga, la dagaalanka al-shabaab, dhamaystirka dastuurka iyo arrimo kale. waxaa shirka ka maqan dowlad goboleedka Puntland oo horey u qaadacday in ay ka qayb gasho shirkaasi. cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa aragtida Puntland ee shirkan waxa uu weydiiyey wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Darir. sanooyin badan aynu soo dhaafnayo intii xasan oo xilka ku soo noqday waa iska socdeen talada gacan bidixda ah oo aan wax ka soo baxayn. aragti siyaasadeed madaxda way isugu keeni kartaa, laakiin aragtidaasi haddaanay ahayn mid loo midaysan yahay oo dadka o dhan ka dhexaysa, waa odayaal sheekaystay uma la mid tahay oo odayaasha iska sheekaysteen. marka waxa la isu keenayo oo haddaan wadatash caam ahoo dadka ka dhexeeyo laysku raacsan yahay la gaadhayn, meel lagu filayana wixii la gaadho aan xitaa lahaynin, meesha wax ma yaallaan weeyaan macnaheedu. hadda mar kasta oo arrimahan ay Puntland ka hadasho hadalaad adag ayaa kasoo yeera. marka maxaa diidayo ama idinka hortaagan in aad bilowdaan bal khilaafkan xalkiisa inaad dhinac ka raadisaan, halkii aad mar walba mowqif adag, hadallo adag aad u jeedin laheedeen? soo ma haboono inaad dhinaca xal ka raadisaan oo aad la fadhiisataan dhinaca federaalka? dowladda Puntland iyo madaxweynuhu waxay soo jeediyeen gobol qaran bay dhigeen dadka Soomaaliyeed inay ku wada hadlaan, bal wixii lagu kala duwan yahay hal la keeno, ha laga wada hadlo. annagu waxaanu taagannahay si caafimaad qabta ha loo wada hadlo, si saraaxad leh ha loo wada hadlo. wixii dadka ka dhexeeya iyadoon cidila cararayn oo lays hor joogo ha laga wada hadlo. wadaadada halkaa ku shirayaana waxay doonayaan wax lala cararayo oo aan dadka aan loo ogolayn inuu dadku wada lahaado. waa garta wasiir, marka iyadoo si caafimaad qabta loo hadlaayo, qolo walbana ay bayaanadeeda usoo saarayso, Puntland waxa ay diidan tahay muxuu yahay oo shirkan ay ku diidan tahay? annaga waxba ma diidanin. waxaanu doonaynaa dowladnimo Soomaaliyeed oo taabo qaada oo federaalah oo loo siman yahay baan doonaynaa annagu. waxaa bedelkeedii la keenay in la dowladnimada lala cararo, in la yidhaha federaalism ma jiro, in la raadiyo waxaan soo noqonayn wax la waayey geelow ninkii waalanba u duday. waxa weeyaan annagu waxaanu doonaynaa dowlad Soomaaliyeed oo dimuqraadiya oo federaalah oo dadka Soomaaliyeed u siman yihiin baanu doonaynaa. shirkaas Muqdisho ka socda go-aamo ayaa ka soo bixi doona ama warmurtiyeed. marka wixii shirkaas ka soo bixi doona idinka oo Puntland ah sidee u aragtaan? haddi nama qusay waxaa ka soo baxa annaga nama khuseeyo. ninkii wacday bay khusaysaa isaga, annaga nama khusayso. haddii xaaladda ay sidaan kusii socoto oo sidaan loo kala taagnaado, muxuu ku dambeynayaa marka masiirka labada dhinac? Puntlandse maxay qaadan doontaa? annaga Puntland horta waxaad ogaataa dal caafimaad qaba oo ammaana oo sharciga Puntland uu ka fulo oo xuduuda leh baanu ku noolnahay, oo cashuur qaado, oo mushahar bixiya. annaga wax weyn oo naga maqan horta ma jiraan. annagu Soomaali baanu wax la doonayna, mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee dhalan doonaanu difaacaynaa, kuwa maanta joogaanu difaacaynaa inay xaq helaan. annaga horta wax naga maqan oo aanu baa iska yarba annaga horta. marka khilaafka idinkala dhexeeya dhinaca federaalka heer wuxuu gaaray Puntland Ethiopia intay tagto heshiisyo lasoo gasho. marka arrimahaas oo kale sidee loo arki karaa? maxaase keenay wasiir? cid waliba danteeda iyadaa mas-uulka ah. cid waliba wixii ay dan moodo oo danaheeda khuseeya inay ku dhaqaaqdo ka shaqayso. Ethiopia xuduud baan leenahay, dana bacmishar, caafimaad, arrimo bulsho, waxyaaba fara badan oo isdhexmar iyo kala ganacsi baa naga dhexeeya. arday baa waxbarasho ugu dhoofaysa, kuwa caafimaad u aadaya, ganacsi baa xaggooda ka imanaya, innaga ganacsi baa nooga imanaya. marka
danahaas wax ka duwan oo danaha bini'aadamku iyo macaamilkiisa ka dhexeeya wax ka badan iyo deriska aan nahay annaga intaa ka badan nagama dhexeeyaan. intaana waa shay dastuuri oo xaq baanu u leenahay inaan intaas samayno. si looga gudbo khilaafka maxaa soo jeedinaysaan ka Puntland ahaan? waxaan soo jeedinaynaa in muxuu ahaay la isugu yimaado gogashii qaran ee Puntland dhigtay ee madaxweynayaashii hore, ra'iisul wasaareyaashii hore, siyaasiyiinta geeska Afrika ee Soomaaliyeed in la isugu soo noqdo. weli waxaanu qabnaa aragti ah inaanu badbaadin karno Soomaaliya haddiina la dhegeysto inaanu badbaadin karno. waxaanu u doodaynaa xuquuqda inta hadda noole joogta iyo kuwa dhalan doona in la ilaaliyo xaqa ay dalkooda ku leeyihiin inay ku noolaadaan oo dowladnimo ku helaan, dastuur damaanad qaadaya xuquuqdooda in la helo weeyaan. marka madasha in la isugu soo noqdo, lagu wada hadlo. yani nin hulaab xumay inuu wax qarsanayaa la moodaa. war ninka wax qarsanayo hulaabta intaad iska rogto bal meel cad oo fagaaraha imowo maaragtay dadka Soomaaliyeed ha ku arkeen waxa aad maaragtay aad la baxsanayso. Puntland waxba la baxsan mayso, waxa weeye waa cad yahay warkeedu. kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir. waxa uu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Maraykanka ayaa Arbacadii cunaqabatayno waxa uu ku soo rogay 2 taliye oo ka tirsan ciidamada sida militariga u tababaran ee dalka Suudaan, isla markaana ku hanjabay cadaadis ay cutubkan kaga jawaabaan ama kaga joojiyaan duulaan ay ku qaadaan magaalada El Fashir ee gobolka Darfur ee dalka Suudaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. waxda maaliyadda ayaa sheegtay inay xayirayaan hanti kasta oo Maraykanka u taala, isla markaana ay dambi ka dhigayaan wax isweydaarsi lala sameeyo Cali Yacquub Jibriil oo ah taliyaha bartamaha Darfur ee xoogagga gurmadka degdega, iyo Cismaan Maxamed Xaamid Maxamed oo ah sarreeye guuto oo ku lug leh qorshaha howlgallada xoogaggan oo magacooda loo soo gaabiyo RSF. Matthew Miller oo ah afhayeenka waxda maaliyadda ayaa war u soo saaray ku yidhi howlgallada militariga RSF ay ku hareereynayaan isla markaana ay ku go'doominayaan Al-Fashir oo ku taalla waqooyiga Darfur waxa uu halis geliyey nolosha 100,000 oo qof oo rayida. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale Matthew uu yidhi waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadno tallaabooyin dheeri ah oo ka dhana ashkhaastaasi iyo weliba hay-adahaasi sida firfircoon u hurinaya dagaalka oo ay ka mid tahay ficilada duulaanka Al-Fashir. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna isniintii codkiisa digniinta ku biiriyey wararka sheegaya dagaal culus oo ka socda meelaha sida weyn ay dadku u joogaan xilli xoogagga RSF ay doonayaan inay la wareegaan gacan ku haynta Al-Fashir oo ah magaaladii ugu muhiimsanayd uguna dambaysay ee ku taalla Darfur ee aan gacantooda ku jirin. 10,000 oo qof ayaa dhintay halka malaayiin kalena ay barakaceen tan iyo markii dagaalku bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023. dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba xoogagga RSF, isla markaana yimi kadib markii taliyayaashoodu ay diideen inay qorsheeyaan inay isdhexgalaan. Maraykanka ayaa hogaamiyey dadaalo diblomaasiyadeed si loo joojiyo dagaalka, balse guusha iyo saamaynta la arkay ayaa kooban, iyadoo taliyayaasha xoogaggan RSF-na aanay u muuqanin inay dalalka reer galbeedka u taalla hanti, taasoo ay saamayso cunaqabataynahan Maraykanku. xoogagga RSF iyo weliba ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa la arkay labadoodaba iyaga oo raba inay hantiyaan dhulka lagu dagaalamayo kuna guulaystaan, iyadoo dhinac kasta uu taageero ka helaya gacmo dibadda. Tom Briello oo ah ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Suudaan ayaa mar kale safar ku tegaya bariga dhexe iyo weliba Afrika toddobaadkan, iyadoo rajo laga qabo in horumar laga sameeyo. Maraykanka ayaa labada dhinacba dusha u saaray dambiyo dagaal, isla markaana ku eedeeyay kooxda RSF isirsifayn iyo weliba dambiyo ka dhana bini'aadamnimada inay ku sameeyeen dadka asalkooda Afrikaanka yahay ee ku nool Darfur. RSF oo bedeshay maleeshiyaadkii Janjawiid ayaa olole aanay waxba la hadhin ee ku fuliyay galbeedka gobolkaasi, taasoo xilligaasi Maraykankuna uu ku tilmaamay xasuuq. aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in 5 ka tirsan sida warkabaad ku maqlayseen ciidamadooda ay ku dhinteen weerar uu geystay taangi Israa'iil leedahay waqooyiga magaalada Gaza. dhinaca kalena Maraykanka ayaa sheegay in uu dhammaystiray dhismaha buundo macmal ah oo kuwa biyaha dul sabeeya ah oo uu ka dhisay xeebta Gaza si gargaarka loogu adeegsado. Ibraahim Xasan Daandurey ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ka qortay VOA-da.
dhimashada ayaa waxay ka dhigaysaa tirada askarta ka dhimatay israa'iil 273 tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar. sidoo kale militariga Mareykanka ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in dekad kumeel gaar ah oo lagu sameeyay xeebta Gaza ay dhamaatay, taasi oo noqon doonta waddo cusub oo uu maro gargaarka bini'aadamnimo ee galaya marinka Gaza. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in baabuurta xamuulka ah la filayo in ay bilaabaan inay u soo dhaqaaqaan dhanka xeebaha maalmaha soo socda, waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay mas-uul ka noqon doonto helitaanka shixnadaha iyo isku duwidda qayminta. marinka cusub ee badda ayaa waxa uu ku lug leeyahay dhowr qaybood, iyadoo gargaarka marka hore uu kormeer iyo hubinba ku marayo Qubrus. kadib ayaa xamuulka waxaa loo soo qaadayaa dooman dul sabeynaya badda oo uu sameeyey Mareykanka. qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalka lagu doonayo in lagu kordhiyo waxa ay hay-adaha gargaarku ay ku sheegeen inay tahay cunto, dawo iyo sahay kaleeto oo aan ku filayn dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. qaar ka mida kooxaha gargaarka ayaa sheegay in marinbadeedku aanu ahayn xalka ugu wanaagsan, iyagu uu ku doodayaa in kordhinta qulqulka gargaarka ee iskoosyada dhulka ay aada uga waxtar badan tahay taasi. wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa Arbacadii waxa uu weeraray ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu kadib markii uu ku guuldareystay in uu dejiyo qorshe lagu maamulayo Gaza kadib marka uu dhammaado dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas. balse hogaamiyaha Israa'iil ayaa sheegay in aysan macno lahayn in sidaasi la yeelo ilaa laga adkaanayo xagjirinta. laga bilaabo Oktoobar, arrintani waxaan si joogto ah aan ugu soo bandhigayay golaha wasiirada, wax jawaab ahna kama helin. waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu in uu go'aan qaato oo uu caddeeyo in Israa'iil aysan ka dhisi doonin maamul rayada marinka Gaza, ayuu yidhi Grant, isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo helo wax bedela maamulka Xamaas. Gaza ayaa waxay hoy u tahay ilaa iyo 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah. weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo weerarada Israa'iil ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Xamaas ay taasi kaga jawaabaysay ee Gaza ayaa Netanyahu waxaa si joogto ah ugu diiday inuu dejiyo qorshe dagaalka kadib lagu maamulayo Gaza. Mareykanka oo ah dalka ugu weyn ee hubka u daabulo Israa'iil ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo maamulka Falastiin si ay u maamulaan Gaza iyo daanta galbeed, labadaba laba dowladood ah oo isgarab yaala. laakiin Netanyahu iyo isbahaysigiisa garabka midiga ayaa si adag uga soo horjeeda xalka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in wada hadal kasta oo ku saabsan sida Gaza lagu xukumayo ama lagu maamulayo dagaalka 7 bilood kadib ay tahay hadal maran haddii Xamaas ay sii joogto dhulkaasi. wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil ee midigta foga Itamar Ben-Gvir oo xubin ka ah isbahaysiga talada haya ee Netanyahu ayaa isaguna Gallant waxa uu ku weeraray aragtidiisa. Ben-Gvir waxa uu Gallant uu ku sifeeyey wasiirkii gaashaandhigga ee ku guuldareystay 7 Oktoobar, maantana kusii socda guuldareysigaas, waxaana uu yidhi waa in la bedelaa wasiirka gaashaandhigga si loo gaaro hadafyada dagaalka. dagaalkan ayaa ka dhashay weerarkii argagixiso ee kooxda Xamaas ay bishii Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, ayna ku qafaashteen ilaa iyo 250 laystayaal sida ay sheegeen saraakiil Israa'iila. weerarkii ay Israa'iil taasi kaga jawaabaysay oo ay ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 35,200 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza ee Xamaas ay maamusho, oo ay ku jiraan dad rayada iyo dagaalyahano, balse waxa ay sheegtay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur. warbixintii ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Dandurey. halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA, si toosa ay idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. ciddii ay wararkani sheegeen iyo inta jeclin ee dib mar kale u daalacato waxa ay mar kasta ku noqon karaan oo ay aadi karaan website-keena voasomali.com iyo bartaan ku leenahay Facebook. haatanna waa barnaamijkii bandhiga VOA-da
oo aan toddobaadkan ku eegayno doorka odayaasha dhaqanka soomaalida iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen. Sahre Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga VOA-da. hoggaanka dhaqanka ee Soomaalidu waxa uu ahaa soo jireen meelaha qaarkoodna magta iyo meeriska taladuba ubad dhaxaad ayay u ahaayeen bulshada qarniyo badan. deegaanada Soomaalidu ay degto gabi ahaantoodba waxaa dhaqanku ay leeyihiin duubab waaweyn oo loo cimaamado inay talada qoysaskooda ay jaangooyaan qaybaha kore, ayadoo hababka dhaqanka qabaa'ilkana lagu halbeego hadba xeerarka ay leeyihiin qabiiladu. qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo ah dhaqan yaqaan ayaa ii sharaxay in hoggaanka dhaqanka Soomaalidu uu soo maray saddex marxaladood oo midkoodii ugu horreeyey uuba ahaa mid ka sii horreeyey gumaystihii dalka yimid. saxnaay dhaqanka Soomaalida markii la fiiriyo dhowr heer ayuu soo maray. nimankan la yidhaahdo madax dhaqameedku dhowr heer ayay soo mareen. mar waxay ahayd markii miyiga la joogay Soomaalidu ay miyi u badnayd. markaas iyada ah madax dhaqameedka Soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin la soo gudboonaada xallintooda. taasi mar bay ahayd. markaa lafteeda ma ahayn waxa ay madax dhaqameedku ma ahayn inay iyagu goyn jireen sidii dowladdii oo kale go'aama qaadan jireen oo go'aamada la fulin jiray. awood fulineed ma lahayne waxay lahaayeen awood haddii alla kugu nool yahay moral ah oo odayaasha kale oo qabiilka ayaa soo bisleen jiray arrinta, markaasay u keeni jireen, markaasuu ku ducayn jiray oo haddii alla kugu nool yahay guddoomin jiray. laakiin wuxuu isagu soo jeediyo waa laga doodi jiray, ma ahayn wax mataqaanaa midi lagu gooyey. saas sidee u ahayd gumaysiga baa yimid. gumaysiga markuu yimid rag waxay ahaayeen madax dhaqameedka u badnaayeen dad integrity leh oo haddii ala kuu nool yahay oo qoor iyo xerar ah oo aan been aqoon oo aan laaluush aqoon oo ayay ahaayeen. raggaas ayaa gumaysigii wuxuu ka waayey wixii uu ka rabay in ay mataqaanaa u ogolaadaan oo haddii alla kuule dadka usoo gacan geliyaan shacbiga ay markaa u taliyaan. way diideen. gumaysiga markaa wuxuu sameeyey rag kale ayuu ka ag samaystay oo ogoltiisa ogol, iyadiina ma hagaagin oo ma noqon wax gumaysigu uu ku guulaystay ma noqon. sidoo kale waxaa jiray xilliyo dhexe oo ah wakhtigii dowladnimada Soomaalidu ay qaadatay, markaasoo dhaqankuna sidii hore si ka beddelan lagu arkay, gaar ahaana wakhtigii dhowaa ee dowladdii kacaanka oo awoodda hoggaanka dhaqanka sida uu leeyahay Axmed Faarax Cali Idaaja uusan ahayn mid u buuran sida maanta uu yahay. dowladdii Soomaaliya markay dhalatay marka iyadoona sidii oo kale ayay mataqaanaa isaga fogaysay nabadoonnadii iyo wixii loo bixiyey iyo duqowdii. sababtu waxa weeye waxaa la yidhi dowladda iyo shacbiga cidna inay u dhaxayso ma aha. weliba xilligii kacaanka ayaa la yidhi dowladda iyo shacbigeeda iyadaa maamulaysa, oday shaqo kuma leh. waa la soo dhaafay heerkaas. heerkii odaygu ka shaqayn jiray dowladnimada oo dowladda ahaa oo odaygu ka shaqayn jiray iyo guurtidu ahayd waa la soo dhaafay. shuruuc baa la samaystay, dowlad baa la noqday. marka looma baahna in odayaasha mataqaanaa haddii alla ku ronya ay iyagu go'aama gaaraan. go'aamadaasna la fuliyo, dowladda la wadagaa. arrinta dowladda ayaa iskale ayaa la keenay. haddaba wakhtigii ka dambeeyey dowladihii dalka, gaar ahaana markii burburka dalka uu dhacay, hoggaanka dhaqanku waxa uu u muuqday inay heleen fursad ay qayb uga noqdaan jaangooynta talada dalka si ka beddelan sidii hore, waxayna qaarkoodba ku milmeen siyaasadda. markii burburkii dhacay, dagaaladii dhaceen oo qabaa'ilka dirireen oo haddii alla kuu roon yahay dowladdii meesha ka baxday, markaas weeye marka ay awood ziyaada ah oo aysan weligood yeelan ay yeesheen odayaasha dhaqanku. markaas weeye marka ay yani iyagu laga sugay taladooda in la qaataa ay qasab noqotay. markaas weeye markay yeesheen awood fulineed oo aysan weligood yeelan. maanta waxa awood leh waxa weeye waa odaga reerka ayaa awood leh. awood fulineed buu yeeshay, waa aniga ku iri. awal waxa weeye awooddiisa moral bay ahayd. wuu ducayn jiray, waa la ixtiraami jiray, integrity buu lahaayo haddii alla kuu roon yahay, qoor iyo xeer uu lahaa.
marka xoolo ma qaadan jirin, laaluush ma ogolo ma qaadan jirin. maanta waxa weeye siyaasadii bay si walba ugu jiraan odayaashii dhaqanka. sababtuna waxa weeye yani siyaasiyiintii baa gabay kaalintoodii, marka inay boos halkaa ka raadiyaan oo ka helaan ayay isku dayeen, waana ku guulaysteen. shir walboo laysugu yimaado odaga reerka ayaa laleeyahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo hawsha iska lahaa iyaga ayaa uga horeeya ugana awood badan maanta. dhaqanka soomaalidu waa uu ka qara weyn yahay dhinacyo badan marka loo eego, gaar ahaanna habka xallinta xaajooyinka qabaa'ilaadka. qoraaga muxudiin xuseen ciid oo dhowaanba soo bandhigay buuggiisii ugu dambeeyey ee dhaqanka uu uga hadlay lana yidhaahdo godob iyo geeri ayaa waxa uu qabaa in dhaqanka soomaalida gaar ahaan hoggaanka dhaqanka ee wakhtigan ay wax badani iska beddeleen. dhaqanka soomaaliya wuxuu u ahaa udub ama tiir dhaxaad marka ay timaado xalinta khilaafaadka, guurka, xeerka reerka uu leeyahay, si walbo noloshooda ka mid ah waxa hagahaya ama xudunta u ah wuxuu ahaa dhaqankooda. waayo bulshooyinka caalamka marka la barbar dhigo ummadi waxay saddex waxbaa dadka xira. mar waa inay diin tahay, marna waa inay dhaqan tahay, marna waa shaksiyadda iyo abuurka ilaahay qofku uu ku abuuray nooca ay tahay. ma garanaysaa, qof damiir leh baa jira oo damiirka qof keliyay taasi saamaynaysa. laakiin bulsho marka la yidhaahdo dhaqan iyo xeerar bay yeelanaysaa, kuwaasaana u noqonaya hadday tahay nabadda, hadday tahay guurka, hadday tahay deeqda, hadday tahay nooc walba oo bulshadu ay xiriir u yeelan kardo, xeerar bay u lahaan jireen. qarniyo badan dadka soomaalida waxaa dhegahooda ku soo dhacaya magacyada kaaba qabiiladu ay ula baxaan isimadooda hoggaanka, haddii ay noqoto boqorro, imaamyo, ugaasyo, wabarro, suldaanno, malaaqyo, garaadyo iyo wixii la mida, kuwaasi oo badi hoggaanka dhaqanka ee soomaalida ahaa ablaga soo gaar ahaana deegaanada intooda badan soomaalidu ay degto. koodii ugu dambeeyeyna toddobaadkan waxaa loo duubay ugaas yuusuf, ugaas xasan, ugaas khaliif, ugaas rooble oo lagu caanashubay degmada halgan ee gobolka hiiraan, halkaasi oo boqolaal dad ah oo qaybaha bulshada ah ay u dhigeen diyaafad si weyn bilo loo soo agaasimay. dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale. saar aad u mahadsan tahay. horta xafladdaas waxay ahayd xaflad qiimo badan oo dhammaan siyaasiyiintii reerka iyo haweenkii ganacsatadii qaybaha dhan oo bulshada qabiilkan uu kasoo jeedo dhammaantood ay isugu imaadeen. waxa waaye kulanka ugu weyn taariikhda annaga oo noo dhaco waa ugaasduubka waaye. kanna wuxuu ka ahaa kulamadii ugu weynaay ee taariikhda ay isugu imaadaan dadka uu ugaasku u yahay. yani waxaan ka mid ahay madaxdii siyaasiyiintii ee ka qayb gashay oo xamar ugu imid. nasiib wanaag beledweynaan ka safarnay, baabuur ka qaadanay oon ku tagnay magaalada halgan oo aan si nabad ku tagnay. sababta hadda ay weliba sidaas quruxda badan ee ugu dhacday ee ugu weyneed waxay ahayd dhulkii oo nabad ah, barwaaqaan ah, dadkan xilli roobaad ah, nabadana ay sii saacidaysay ee meel kasta isaga imaan kareen oo gobolka ah. oo ma jirin carqalado oo dhanka amniga ah, maadaama meesha halgan ay ka mid tahay meelihii la xureeyey oo dadka badan ay kusoo dhinteen oo dagaalkii aan la galnay qoladii nabaddiidkeeda khawaarijta ahayd ay ka mid ahayd. runtii waxay ahayd wax oo la qiyaasi karin. ummadda khalqiga intaas leeg oo ugaaska yahay, dadkaynuna iyo reerkaynuna oo beesha aan ka dhalano ugaaska u yahayna runtii waa dad aad ugaaska u ixtiraamo, ugaaska u daba fadhiya wax walbo. inkastoo lagu tirinayo hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida in waayadan ay siyaasadda ku dhex milmeen, haddana xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale ayaa wuxuu ii sheegay in hoggaanka dhaqanka kursiga ugaasnimo ee toddobaadkan lagu duubay gobolka hiiraan intiisa badan siyaasadda uu ka madax bannaan yahay, gaar ahaana marka ay noqoto soo xulista xildhibaanada amaba siyaasiyiinta kaleeta ee qabaa'ilaadku ay leeyihiin, si markaasi eedo badani uu uga baaqsado. walaal sahroy, annaga horta dhaqanka iyo siyaasadda inkastoo waayadan dambe dalku ay isdhex galeen, annaga horta ugaasyada reerkan soo mara way ka duwan yihiin ugaasyada kale ee dalka, qabaa'ilada kaleeto. marka ay tahay siyaasadda oo ama xilliyada xildhibaanada oo dadka matalaada dowladda loo dirsanaayo, hadduu yahay heer gobol iyo heer federaalbo, ugaaska xawaadlaha dhammaan ugaasyada soo martabo
ma dhex galaan halka ugaasyada kale ay dadka soo qoraan laakiin ugaaska maadaama uu ugaas yahay ilaan waxaa laga yaabaa kursi kasta 5 qof 6 qof inay rabaan ugaasownu yahay marka waxa ugaaskeena loo jecel yahay kamid tahay inuu ugaaskeena uunan dhex gelin oonan u kala heelinin dadku ugaasku yahay oo maaragta wax lug oonu ku yeelanin oo soo jiidashada waxay u leedahay oo annagu hadda dadka ugaaskeenu uga duwan yahay ugaasyada kaleeto waa cadaaladda waaye cadaalad mar haddii ugaaskii uusan dhex gelaynin arrimaha noocaasa uunan u kala helinaynin wuxuu ku istaagaa halkaas waxaa gala dhaqanka kale odayaasha oo nabadoonnada la yidhaahdaa arrimahaas galo laakiin ugaasku ma galo cabdikariim cilmi yuusuf waxa uu ka mid yahay nabadoonnada dhaqanka gobolka hiiraan wuxuu iiga warramay sidoo gobolka hiiraan looga tixgeliyo hoggaanka dhaqanka iyadoo mid ka mida beelaha dega gobolkaasina ay si weyn u quweeyaan ugaaska dhaqanka gobolka hiiraan iiba dhaqanka hadda beesha xawaale ugaaska ay duganaysay waxa weeye waa dhaqan soo jireen ah haddii uusan ahayn midka uga fac weyn soomaalida wuxuu ka mid yahay kuwa uga fac waaweyn dhowr qarni ayuu soo jiray marba marka ka dambaysana aada loo xiiseeya aada loo ilaaliya aada loo tixgeliya haddii ilaahay ku ron yahay wax badan oo ma garanaysaa kala dambayna oo nidaama oo ismaqala oo kala dambaynaya uu leeyahay dhaqanka gobolka hiiraan haddii ilaahay ku ron yahay haddii ay noqoto dhanka bulshada deriska dadka deriska la ah beesha haddii aan lahayd dhinaca dawladda waxa wax laga weyd ama ka jawaabo oo go-aanka ugu dambeeya leh waxa weeye waa dhaqanka waa ugaaskana sida ay bulshadana u tixgeliso si aan caadi ahayn ay u tixgelisaa oo kala dambaynta iyo nidaamka iyo dib u heshiisiinta bulshada degan gobolka hiiraan iyo dadka deriska la ehba meel aad baa looga tixgeliyaa oo waxaaba loo yaqaanaa mararka qaarkood ugaasyadaa loo yaqaanaa gobolka hiiraan hadda 22 ugaasoo soo maray hadda inuu ugaaskii 22 yahay baan jeclahay intaas oo soo maray oo ninka ugu yar ugaaska ugu yarba oo 50 sano ama 60 sano ama 70 sano ama 80 sano u gaaray yacni waa dhowr qarni markaan dib u fiirin inkastoo isbedello uu jiro meelaha qaarkood sida ay kuu sheegayaan dadka dhaqanyaqaanka ah gaar ahaan deegaanada soomaalida oo hoggaanka dhaqannadu ay aad isu bedeleen sida xeerarku ay ahaan jireen haddana hogaamiyaasha dhaqanka iyo xeerarka soo jireenka ee beelaha ayaa si weyn bulshada dhexdooda looga tixgeliyaa hogaaminta salaadiinta gaar ahaanna marka ay timaado arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo waayadan ay si weyn uga dhex muuqdaan markaa si gaar ahna gobollada fogfog ee qaarkood ay adag tahay in maamuladu ay si dhib yar uga arrimiyaan barnaamijkii bandhigga VOA-duna waa naga intaas inta aan mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo